وهرسد أوغو هلكاني وهرسد أوغو هلكاني وهرسد أوغو هذا الكبيل وجيسائيو تمان هولها وضنبا قران قسيلا هيبان هودي كبلا بينا هلكاني وهرسد أوغو هلكاني وهرسد أوغو هلكاني وهرسد أوغو هذا الكبيل وجيسائيو تمان هولها وضنبا قران قسيلا هيبان هودي كبلا بينا علمي قوة هدع قدو قبام بلغا قرطا نفتاك هجاكتا هيلينك جندو نقضاي حسيبين تاوغو علمي قوة هدع قدو قبام بلغا قرطا نفتاك هجاكتا هيلينك جندو نقضاي حسيبين تاوغو halkaadkii helaysid waa hoggaan qarnigiyo xilligana ula badan laga qisoonayo ee qaybana jidhkoydii la helay qalabka sheekay dhakhtaradu qalbiga umaayaan daawa loo qoray ha yeeshee waa la isku maqasay qaab kala jira waswaaskii qalbiga kaa galiyo qulubka shaydaanka qamigiyo amiga kubatiyo cadowga qoonkiisa qur-aanka ka dawaa intaboo lagu qabooba qalbigana iraabuuye qabil baan garanne qabsaday qasnadii waa xaqoo qalad kuwa ceebe qur-aan qodkamadirkiyo qaraada yaabayso qur-aanka le qaligeen qodobna dhaafay haddii loo qadara may noqdeen qabatanaay qushuuca wadeed bay dhammaan quban lahay qalbigeennu adaga dado qabil baanaay geedu hadday qali noqdaan qoreeya tawriidka badaana khad loo qoyo looga dhiga qab cilmiga loo qaybaan qurubka yaalleeni qalbigeennu adaga dado qabil baanaay xadiid iyo xamiim iyo xaj iyo xaqayada xigmada qur-aankiyo bariyo xubista yaasin kii qur-aanka ciise u bartee kana cudud yeeshay ka cambaar qiyaamaha dhibkiyo xaaladahaya aayaadka kii cura ee xuma kala u baydhay isagana xujuubu ku yahay maalin xogbaana intaad xaadirteen nooshaad xaraaka haysaaye mar haddii xabal laysku rido xidhaanta hawshii sabtama intaad nooshiin laysma xaasidee haddii ubadku toreyo oon taabka lagu hayno oon tarbiyad la siin diintu waa tamarta koowaad ku toreqatiyo budhulaamaygaystaw qubto ruuxa taag daran ku dilaa tirayaroma oo waalidkii loo tago loteelka lagu tuuro waa tacab khasaariyo dhibiyo tifanka adhine qofku marka uu dhinto camalkiisu wuu gebagaboobaa saddex qof ayaa qabriga iyagoo ku jira camalkoodu shaqeeya kow waxa weeyaan qof nin cilmi intuu bartay cilmigaa waxa weeyaan dadka sii baray oo lagu intifaacay iyo nin sadaqatul jaariya madrasad hadda aynu iskuuladan aan joogno bogcadda iyo dhulkaba waxa laga yaabaa inay dad muxsiniinihi ay dhisgaa sameeyeen dhulka bixiyeen ilaa qabriga qofkaasi uu ku jiro waxa u soconaysa xasanaadka ka kale waa waalid waa ilmo saalixa buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam oo waalidku si wanaagsan u barbaariyey oo marka uu waalidkiisu dhintay ilaahu hooyaday iyo aabbahay u naxariiso hadda waxay noo muuqdaa ubadku waxa weeyaan waa geedaha labadaa geed ee hareeraha inaga xiga
waa geeda la barbaariyey oo si wanaagsan baa loo xidhay dabeedna geedahaasi waxay sameeyeen laba arrimood aad bay u qurux badan yihiin waxaa kaloo ay sameeyeen manaafacaad oo hadh weyn oo damalaba yeelanayaan oo waa la harhsanayaa geedaha waa la xanaaniyey geedkaa dayrka ka muuqda lama xanaanayn farangaagu isagu leeyahay oo waa siduu baxay baad arkaysaan ubadku waxay u baahan yihiin sida geedkaas oo kale waxaan ilaahay baa mahadle marka koobaad waxaynu u mahadnaqaynaa marta sharafta qaaliga ah ee nagala soo qayb gashay gudoomiyaha guud ee guddida wanaag farista xubnaha kale ee waalidiinta ka mid ah ee dowladda ka tirsan iyo waalidiinta kale ee sharafta leh iyo macallimiinta qaaliga ah maamulayaasha qaybaha dugsiyada horseed ay ka kooban tahay xafladeennan maanta qayb keliyuun baynu u qabanaynaa waa xaflad qaybta kale 150ka iyagana berri baa loo qabanayaa xafladoodii waxaa xusid mudan dugsigeennan horseed wuxuu ka kooban yahay 4 qaybood 4taa qaybood tani waa qayb ka mida 4ta qaybood ee horseed ay ka kooban yihiin qaybtan iyo qaybaha kale qaybta koobaad ee ugu horeysay horseed waxaa la aasaasay 2009 muddada intaa leeg waa dugsigu ku gaadhay horumarka intaa leeg waxaana garab iyo baalal uu ku duulo u noqday oo ilaahay sokeedii ah macallimiinta sharafta leh iyo waalidiin badan oo dugsiga ku xidhnaa ilaa waqtigaa oo arday badanna u dhammaystay qaar badanna uga qalin jabiyeen dugsigeenna waxaa lagu yaqaanaa macallin kastoo dugsi kale ka yimaadaana uu ku kantaa in ardayda reer horseeda ay yihiin arday akhlaaq fiican ilaahay baa inoo aqbalay halkudhigga aynu samaynay ee ah al-akhlaaqu simatuna waalcilmu hadafuna oo macnaheedu yahay akhlaaqdu waa astaantayada haddaanu reer horseed nahay cilmigiiyo aqoontuna waa hadafkiiyo ujeeddada aanu leenahay haddii aan intaa kaga soo gudbo taariikhda dugsiga iyo macallimiinta waxaa maanta sida macallimiinta hore iyo maamulada hore idiin sheegeen aynu furaynaa sanad dugsiyeedka cusub xafladiisii si loo guddoonsiiyo ardaydii kaalmaha gashay oo ardayda maxaa ahayd halkan fadhida ugu badana in loo guddoonsiiyo abaalgudkoogii arday kastaana wuxuu helayaa istimaaro ama warqad ama shahaado caddaynaysa natiijada imtixaanka kaalintuu kaga jiro si waalid kastaa ula socdo halka ilmihiisu taagan yahay oo haddii uu meel sare ku jirana halkaa kor uga sii socdo inuu hoos uga soo dhicin haddii uu hooseeyana waalidku ula socdo sida maamulaha qaybtu idiin sheegayna waa in xidhiidh uu jiraa ama isku xidhnaan uu jiraa waalidka iyo macallinka iyo ardayga iyo maamulka intaba taana waxaa sidii laydiin sheegay qorshe cad looga yeelay sanad dugsiyeedkan wixii ka dambeeya oo waalidku saxiix buu soo samaynaya buug waalidka iyo xidhiidhinaya ardayda iyo macallimiinta waxaa xusid mudan iyaduna dugsigeennan horseed waxaa ka qalin jabiyey oo dhammeeyey dufcado badan oo imtixaanka la gala wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxaa xusid mudan halka dugsiyada ama maxaa ahaday somalilan ay ka dhaceen arday fara badani dugsigan iyo qaybtan aynu fadhinno hal arday kama dhicin taasina waxay ku timid dadaalka macallimiinta dhammaantoodna waxay ku baaseen dhibco aad u fiican dhammaantoodna iyagoo faraxsan oo waalidiintu ay noo wada mahadnaqayaan ayay maxay ahayday dugsiyadii ay dugsigii sare tegeen waxaa iyadana aan dugsiga kusoo kordhinaynaa sanadkan oonu kusoo kordhinay qayb gelinka dambe ah oo aanu iminka diiwaangelinteedii wadno qaybta 150 ama qaybtaas way u bilaabantayba waxbarashadii gelinka dambe qaybtana waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay bilaabanto oo aanu ugu talagalnay dadka danyarta ah ee xaafadda degan oo aanu doonayna in lacag ka jaban lacagtan ama qiimaha gelinka hore aanu ka qaadno si ay u kafayso maxaa ahaday macallimiinta markaa ka shaqaynaya oo keliya waayo inta badan waxyaabaha culayska keenay waalidkana culayska lagu saaro inta yara ardayda laga qaadayo waxa loo qaybiyaa kirooyinka iyo qarashaadka dugsiga waxaa iyaduna xusid mudan oo iyaduna sanadka soo socda dugsigu uu yeelanayaa qayb secondaria oo iminka aanu wadahadalkii negotiationkii noo wada socdo qoladii dhisaysay dhismaha secondariga oo aan ka fogeyn qaybtan aynu joogno oo insha allahu tacaala aan rajaynayna isagana sanadka soo socda inuu soo kordho horumarka intaa leeg ka aynu iminka hayniyo ka aynu hiigsanaynaba ilaahay baa mahadle laakiin waxaanu u mahadnaqaynaa mar koobaad iyo mar labaadba waalidiinta sharafta leh ee ubadkooga la garab taagan hiiliyahooba ee iskuulka talooyinka siiya waalidiinta kalena waxaanu ka rajaynaynaa in insha allahu tacaala sidaasoo kale talo u siiyaan oo ay fikirka fiican ee ay isleeyihiin waxa ku horumaraya dugsigiina
ay soo gudbiyaan waayo cidda wax la baraya waa ubadkeennii cidda lagu tabcaya waa ubadkeennii cidda aynu wax ka doonaynaa ee midhaha halkan ka soo baxaya waa qofkii aad mustaqbalka adigu aad ku tabcaysay ee aad hadday tahay dooni iyo maxay ahaye dhar iyo wax walba hadday tahay iyo aqoonba aad adigu u tabcaysay insha allahu tacaala waalidiinta kalena waxaan ka rajaynaynaa inay dugsiga ku xidhnaadaan hadalka ma dheeraynayo wakhtiga oo kooban awgii intaasaan kusoo koobayaa qaybta kalena xafladeedii insha allahu tacaala iyaga barri baa loo qaban doonaa ardaydii yarayda keejiyadana shalay baanu iyaga barnaamijkooda u dhammaynay si aanay buuq maadaamaanay barxaddu qaadaynin ardayda oo aad u fara badan awgeed aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh